waxaa goor dhaweyd kusoo gabagaboobay kulan ay yeesheen wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Dhuusamareeb. Wasiirka ayaa bulshada Dhuusamareeb uga warbixiyay waxa ay ku saabsanay iyo qodobadii ku koobnaa heshiiskii ay bil ka hor wada galeen hoggaanka Ahlusunna iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasiirka oo sheegay in dowladda dhexe ay hirgelisay qodobadii heshiiska dhammaan marka laga reebo hal qodob. Halkaas qodob uu ka gaabsaday Wasiir Sabriye inuu la wadaago bulshada, balse uu sheegay inay weli la gaarin qodobkaas. Hoggaanka Ahlusunna ayuu ku eedeeyay inay caqabad ku yihiin dhismaha maamulka Galmudug iyo isu keenista ergada ka qaybgalaysa shirka Dhuusamareeb iyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee Galmudug oo sidii sheegeen ay ku gorgortamayaan. Hadalka uu caawa Dhuusamareeb ka jeediyay wasiirka arrimaha gudaha ayaa cabsi laga qabaa inuu caro kasii dhalato oo galabta ku dhawaaqday inay iska difaacayso dowladda federaalk Soomaaliya.